السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ugu xiran waxaan rajeynaa dhamaantiin aan wada caafimaad qabtaan alxamdulillah. Inta hore noola joogtay aad u mahadsan yihiin inta hadda nagu cusubna xaaleena gacmo furan ku soo dhawaada channelka subscribe noo saara ka bareerka furta muuqaalka like iyo share noo dhaha dhanka page ka ka soo gaarno soo follow kareeya aad u mahadsantiin. Laamiga warshadaha waaye. Laamiga warshadaha wuxuu ka mid yahay laamiyada aan burburka kadib la dhisinin ama macnaha laga shaqeynin. dowladdii dhexe u burburtay sidii uu yahay ilaa hadda laakiin waxaan rajeynaynaa mar dhow in laga shaqeyn doono insha Allah. Eeriyadan hadda aan joogno waa inta u dhaxaysa Mahad Alle iyo Carafaad. Dad badan oo waxa arkay su'aalo iga weydiinaya dadka qaar ma yaqaanaan jihooyinkan iyo eeriyadan laakiin meeshan hadda aan joogno ficlan waxay u dhaxaysaa Mahad Alle iyo Carafaad. Laamigan ka leexanay waxa u leexanay dhanka Yaaqshiid oo macnaha ama waxa u leexanay dhanka waqooyi. Laamiga dhinacan waqooyi waa dhinacan koonfur waa dhinaca waqooyi oo leexanay. Si aad fahmi kartaan waxa iib ah booskan hadeertaan geedihuudka uu ka baxayo oo laba jidlaha ah. Waa boos cabirkiisa waa 20 lagu dhifto 15 sharcigiisa waa rasiidiisa marloog dowladda dhexe Maxamed Siyaad Bare ah. Laamigana kaliya waxa ka xiga dhowr boos macnaha balooga labaad oo ku jira oo birima ka yahay. Balooga labaad marka lagu dhaw macnaheedu waxa waa dhulkan laamiga waxa ka xiga 8 boos. Booskana waa kana inta 20 uu haystaa wadadan jidkan hadda taagana 20 mitir uu haystaa. Laamiga warshadahan waa ka sameeyay mootooyinka iyo gawaarida ay marayaan laamiga warshadaha waay. Cabirku ku fadhiyo 25 waay. Qaabka uu dhismi karana guryahan ka soo horjeeda tusaale ahaan idin tusinaya laakiin booska waa inaa fahantaan. Gaarigaas caasiga hadda meeshuu marayo mootadaasna maraysa laamiga waay. Laamiga marka kaliya 8 boos ka xigto. Booskan sharcigiisa dhulkan eeriyadan oo dhan qof walba uu fahmi karaa waa Siyaad Bare rasiidiisa horog Siyaad Bare wata waana laba jidle. Labadiisa jidna mid wuxuu u jeesanaa koonfur midna galbeed. Galbeedna u jeesan kartaa koonfurna u jeesan kartaa. Wadada oo 20 uu ka haysto wadadan galbeedka aadaysa waay. Macnaha galbeedku u jeesanayso 20 mitir ka haysta mid 15 uu ka haystana waa mid koonfur u jeesanayso ama dhinaca badda xaggeeda u jeesanayso. Jihada ina fahanteen arjeena. Laamiga warshadahan waxa ka joognaa marka taagantahay laamiga warshadaha oo dhankaas X control barcad ay ka imaadid gacantaada midig macnaha dhanka waqooyiga ka joognaa. Guryahan hadda u jeedin waxa weeyaan isku cabir waay. Booskan hadda laba jidla waay. Booskan iyo booskan isku cabir waay. Qaabkana u dhisan kartaa. Gurigaas kaleeto oo asaga ku dhagan sidoo u dhisan yahay u dhisan kartaa. Qofka asaga xuriyad iskala qaabka u dhisanayo. Laakiin dhulka markuu laba jidla yahay 25 uu yahay inta badan dhanka 20 ka loo dhisaa si guri oo cabir quruxsan uu uga soo baxo. Dhanka 15 laba guri oo kala hadii laga sameynayo wuxuu noqonayaa afkiisa hore yaraanayo 7 bir meelahaas uu noqonaa. Laakiin 20 hadii laga kala jaro 10 15 uu noqonayaa. Dhulkan waa aragteen meeshuu ku yaalo xaafad dhisan oo qurux badan waay. Wadadan hadda anaga taagano booska uu saaran yahay wadada kaleeto oo dhankaas ka xigto guryaha asaga ku dhagan wadada ku jeesanayaan interlooga saaran. Xaafadan ayada dhan interloogaas ku soo socdo laamiga warshadaha laftirkiisa waa la dhisi rabaa. Dhulkuna mar walba intaan wadooyinkiisa dhismo la marinin ama laamiga la dhisinin uu gadasho leeyahay oo macnaha lacag macquul lagu heli karaa. Markii la dhiso laamiga ama wadadan hadda uu haysto interloog la saaro lacagtu hadda si macnaha uu yahay lacag badan raacayso. Marka qof walba oo deegaan daneynayay magaalada dhexdeeda meel ah oo xaafadii asalka ahaa oo la yaqaanay ah rabay booskan uu ka faa'iideysan karaa. Laba qof oo kaleeto laba nus u kala qaadan karaan qof walba 15 uu qaadan karaa oo loo kala jari karaa dokumentigiisana waa Siyaad Bare idin sheegay. Booska marka waa kan ficlan meeshan geedihuudka ka baxayo waa ka gudubnay wadada interloogan waa idin tusinayaa laamigana waa aragteen. Lacagta dhulkan lagu rabo waa 58 waay waana aakhirkiisa inta badan anaga dhulka markaa soo gurgurino oo meesha ugu dambeysay soo istaajina bulshada la wadaagna waa 25 ku yaalo Carafaad iyo inta u dhaxayso Mahad Alle Carafaadna kulli eeriyadan warshadaha qofka yaqaan uu garan karaa. Waana boos laba jidla ah oo u jeesanaya galbeed iyo koonfur. Sharcigiisana yaa Siyaad Bare lacagta lagu rabana ay tahay $58,000. waxaa macquul ah eriyadan hadii boos asaga camal laga raadiyo
inaad 65 wax ka yar aa ku weyso laakiin maadaama hadda xilliga ugu fiican oo dhul la iibsan karo ay tahay qof walba oo jeebkiisa ay maanta lacag ku jirtan oo 100 jaanis heli karo saas idinku soo bandhignay wadada asaga saarnaa wadada ka jeesanaysa waa tanaasana interlock loo saaray interlock markii la saaro dhulku uu quruxsanaanaya ficlan hadda wadada aamireyna oo booska u saarnaa iyo wadadan isku aragti ma ahan waana nadiif oo nadaafadina way ka dhalanay quruxna way ka dhalanay ama bilicdi xaafadda inay soo noqoto uu ka qayb qaadanaya interlock wadada hadda asaga uu saaran yahayna waa la saari doonaa intaan la saarinin ka faa'iideyso waana maasantiin soo dhawaada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah